iyadoo ay maalmihii la soo dhaafay ay ka socdeen deegaanka Dharkayngeeyo ee gobolka Sool dagaal u dhexeeya laba beelood oo walaalo isla markaana wada dega deegaanadaasi ayaa waxa uu sababay dagaaladaasi khasaare ballaaran oo naf iyo maalba isugu jira. haddaba xubno wasiiro ah oo ka tirsan golaha wasiirada Somaliland oo soo gaadhay galabnimadii maanta magaalada Laascaanood ayaa waxaa socdaalka wasiirada u daarnaa daminta colaad iyo dagaalada ka taagan deegaanadaasi. wasiiradan oo ay ka mid ahaayeen wasiiru dowlaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Cali Maxamed Axmed Cali Sandulle iyo wasiirka xanaanada xoolaha. ugu horeyn waxa ay wasiiradu la hadleen warbaahinta iyaga baaq u diray labada beelood ee deegaanadaasi ku dagaalamaya. halkan wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland nagu soo diray xubno golaha wasiirada oo aan ku nimid gobolka Sool si aan uga howlgalno dagaalka foosha xun leh ee walaalaha wada dega sina aanu kala tagayn ilaahay meel wada dejiyay ka dhexdhacay shaydaanku ka adeegay ayaan u nimid oo amar madaxweynaha ku soconaa. madaxweynuhu wuxuu yiri saddex saac hawsha uga howlgala runtii wixii hore dhacay mooyaane ilaa hadda wax dambe daba taag oo la sheegayo in laba qof oo dambe ay wax ku dhinteen ma hublo tiradii oo miigu waa balaaran yahay boor buu sheegay laakiin tiradu intii hore waxba ma dhaafsan. marka runtii dad waxa dhacay khasaare aan loo baahnayn khasaare shaydaan ka adeegay. waxaan leenahay dadka Ramadaan Kariim ila afar wasiir oo ay kala labada wasiir dawlad oo wasiirka amniga iyo wasiirka dowladda xanaanada xoolaha iyo Salebaan Ciise Xagla Joosiye oo isna wasiirka caafimaadka Salebaan maadaama meesha dhib ka dhacay iyo xaaladii waxay noqotay inuu isagu dawooyay ambalaasyadii iyo kirkii caafimaadka hawsha ugu badan ee taala hawlaha ka mid weeyay arinta foosha xun ee la filanka wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacay labadaba waan tacsiinayna eheladoodina waan uga wada tacsiinayna. waad ogtiin madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu iska xil saaray arinta in uu maanta gurmadka xoojiyo oo arinta si kasta oo lagu joojin karo awoodda la saaro uu kaga dhabeeyay taladeeda iyo arrinkeedana waa laga wada taliyay inuu ciidanka qaranka iyo kabliiska iyo ciidankii kale loo baahdo iyo haday wasiiro tahay haday isma tahay in la wada dhaqaaqo nabadda la soo sugo maadaama labada reer waqti badan ay soo noqoto maanta la soo afjaro ayuu madaxweynuhu ka taliyay. culimadii dadaalka badneed ee dadaali jirtay ee gobolka uqaashi waxgaradkii salaadiintii iyo ismada oo marba hawshan heegan u ahaan jiray aan ugu malaynayo hadda inay ugu badan yihiin. waxaan leeyahay hawsha wax ka qabta dadaala nala xoojiyo arrinka haddaan aydan idinku kicin oo ismada imanay cid walba ugu horeyn hawsha hawshu way adkaanaysaa idinka gurihiina iyo geedkiina meelba meeshaas ka soo baxaysaa. Mawlid Ismaaciil Haradige, Somali News TV, Laascaanood.